waxaan u qaatay inaan dhintayo jinaasadeydii jirkayga la meerayo inta kale waxa kale cajiiba anugu markii aan komada ka soo baxay caadiga u soo fadhiistay baan meydkaygii iyo naxashkaygii iyo kafantayda lagu duuduubay iyo qabrigayba ay tuseen oo halkan ku jirta aniga baa bal adigu weliga ma aragtay qof la tusay meydkiisii qaar ka mid ah riyooyinka iyo bini'aadamku arkaan waxaa ku jirta cibro qaadasho weliba kuma sii jirto marka uu qofka ku riyoodo riyada soo socota dhakhtarkii baa la geeyey waxaan haddana in yar baraarugay iyadoo naaga cadcade oo dhar cadista eeg taaganyihin cabdixaafid waxaan u qaatay inaa dhintay markaasay yidhahan waa lagu mayraya shakhsiga ee warbixintan taaban doonto waa Faarax Murtiile oo ah fannaan weyn iyo abwaan oo ay aad u wada yaqaanaan dhammaan Soomaalida waxaana uu mar dhow ku sigtay inuu dhinto kadib markii uu shil gaari galay maadaama aysan gelin qadartiisa waxa uu hadda ka soo kabanayaa dhaawacii ka soo gaaray shilkii gaariga uu galay riyo xanuun badan ayuuna arkay kadib markii uu shilka galay waa waqtigii uusan soo baraarugin amaba uusan mir soo yeelan waxaan u qaatay inaan dhintayo jinaasadeydii jirkayga la meerayo inta kale waxa kale cajiiba anugu markii aan komada ka soo baxay caadiga u soo fadhiistay baan meydkaygii iyo naxashkaygii iyo kafantayda lagu duuduubay iyo qabrigayba ay tuseen oo halkan ku jirta aniga baa bal adigu weliga ma aragtay qof la tusay meydkiisii haddii aad doonaysa inaad wax badan ka ogaato riyada argagaxa leh ee la tusiye Faarax Murtiile waxaan kaa codsanaynaa inaad muuqaalkan like saarto si aan u dareenno muhiimadda ay warbixintan leedahay una sheer garay asxaabtaada si aan u helno saaxiibo wanaagsan sida adiga oo kale waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga waxaan u qaatay inaan dhintayo jinaasadeydii jirkayga la meerayo inta kale waxa kale cajiiba anugu markii aan komada ka soo baxay caadiga u soo fadhiistay baan meydkaygii iyo naxashkaygii iyo kafantayda lagu duuduubay iyo qabrigayba ay tuseen oo halkan ku jirta aniga baa bal adigu weliga ma aragtay qof la tusay meydkiisii tani waa qisada naxdinta leh ee ka samaysan cibro qaadashada ee uu la kulmay Faarax Murtiile oo ah heesaa iyo abwaan Soomaaliyeed kaasi oo mar dhoweed ka sheekeeyey riyadii uu arkay waqtigii uu shilka galay iyo waqtigii uu isbitaalka joogayba taas uu ku tilmaamay ilaa iyo weli inuu ka hurdi laayahay dabeetana intan bay wax iga saareen xaggan qaarka sariya qaarka iga mayrmayreen dabeetana waxaan istoolaad dhimatay miya dabeetana markii English bay gula hadlay ayuu oran marka English arsan ku noolno aakhir English ma hadlay Carabi lagu hadlay haye Faarax Murtiile sida uu sheegay waxa uu rumaystay inuu dhintay oo uu joogo aakhiro isagoo la yaaban halka uu joogo cid la hadlaysa waxaan hadalka la yaab kale riyadiisa ku jiro ahaa in markii la seexiyay sariirta isbitaalka uu maleynayay inuusan ba adduunyada joogin laakiin uu la yaabay in luqadda Ingiriiska lagula hadlayo waxaana uu markaa iska dhaadhiciyay in aakhiro aan Ingiriiska lagu hadlin oo Carabi lagu hadlo sida uu isaguba sheegay cabdixaafid waxaan u qaatay inaan dhintay markaasay yidhahan waa lagu mayraya kasaan diiday no waa qasab waxaan u qaatay inaan dhintayo jinaasadeydii jirkayga la meerayo intan bay wax iga saareen xaggan qaarka sariya qaarka iga mayrmayreen dabeetana waxaan istoolaad dhimatay miya dabeetana markii English bay gula hadlay ayuu oran marka English arsan ku noolno aakhir English ma hadlay Carabi lagu hadlay haye isagoo hadalkiisa sii wato weliba qeeraysan ayuu sii cabiray qisadan inkastoo uusan go'aamin in fanku uu iska dayn doonay in kale waan macluumaad ka xidhna si aan qoorto aanay wax u noqon xaggan waxba iga jira xaggan waxba boosh iga jira xaggan bahal iga jira waxay la socotay baashii sharirtii san ku wadda iyo xidho aakhiro waayo waa tali sariiraa socda aakhiro dabeetana meel MAR leeyahay marka damaan ogaaday aan hore u arag waayo hore waxaan arki jiray maxaa la eeg jiray caadiga maarta ee raajada caadiga aqaan ee baashan qabriga u eeg weligii ma aragday qabriga bay geliyeen MAR ayay geliyeen qisadan waa mid cabsi ku abuuri karta qof kasta oo xaaladaasi la kulma sidoo kale waxa xaqiiqo ah in dadku alla jecel yahay uu tusiyo riyooyinkan oo kale si ay fursad uga helaan inay ka laabtaan haddii ay ku jiraan waddo qaldan oo aan aakhiradooda u wanaagsanayn adiga hadda muuqaalka daawanaya maxaad kula talin lahayd fanaanka cajiibka ah ee bartamihii sanadkan ku sigtay inuu shil gaari ku dhinto balse haddii uu ka badbaaday allana uu tusiyo riyadan warwarka leh sooma mudna inuu ku cibro qaato kommentiga inoogu reeb qaybta hoose ee kommentiga adigoo muuqaalka like saaraya una share gareynaya asxaabtaada waad ku mahadsan tahay la jaanqaadkaaga magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nur Shaafino